Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kaliya inaad xirfad leedahay kama dhigna inaad lacago badan samayn karto. Caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada leh xirfadaha kala duwan ee sida iskoo u shaqaysta waxaa ugu horeeya iibinta iyo suuqgeynta oo ah laba xirfadood oo ganacsi walba lafdhawr u ah. Markaan ka hadlayno saliska, midda ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inaan fahanno waa farqi u dhexeeya salis iyo closing. Salisku waxaa la dhahaa waa inuu qofka adeegsado hadal badan iyo sharaxaad dheeraad ah si uu wax uga dhaadhiciyo ama u fahansiiyo macmiilka. Closing-kan waxaa la dhahaa inaad iibintaada kusoo koobtid oraahyo kooban oo macmiilkaaga ka caawinaysa in si dhaqsi ah go'aan u gaaro. Ganacsado walba wuxuu aad uga fikiraa kelmadaha uu adeegsan lahaa marka uu rabo inuu macmiil adeeg ama badeeco ka iibiyo. Sidee loo iibiyaa loogo ama adeegyo kale? Muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa farsamooyin fudud laakiin aad u awood badan. Waxaan hubaa inaadan horey u isticmaalin. Magacaygu waa Yaxya Cabaas, waxaan ahay nashqadee. Haddii ay tahay marka ugu horeysay aad channelkayga soo booqato, fadlan subscribe saar, like saar muuqaalka oo saaxiibada la wadaag. Wixii aragtiya qaybta faallada inagu reeb. Mahadsanid. That you could cut up one of those banger videos that you make that I see on your website. I'd love to do that for you. What's your budget? Sidee loo iibiyaa adeegyada ganacsiga? Haddaad tahay ganacsade ama freelancer ah oo si iskiis u shaqaysta, waxaa macmiil ku heli kartaa laba wado. Midda koowaad, inaad adeegyadaada u isticmaasho suuqgeynta dhijitaalka oo ah in aad qofka si online ah kula xiriirto asina uu kula soo xiriiro. Labo, inaad isticmaasho traditional marketing hore oo ah inaad diyaariso proposal kadibna aad ula wajahdo macmiilka. Waxaa jirta waddo saddexaad oo ah inaad saaxiibadaada ama dadka kugu dhow inay kugu soo xiraan qof markaas u baahan shaqada aad qabato. Muuqaal kale ayaan ku sharxi doonaa sida macmiil loo raadiyo iyo sida ganacsiga loogu sameeyo suuqgeyn dhijitaal ah. Marka hore waxaad fahantaa in laga habboon yahay inaad u dhaqanto sida qof salis oo kale, waayo qofka salesman-ka ah wuxuu kaliya ka fikiraa danihiisa. Kaliya waxaa u cad inuu badeecada iska iibiyo haddaad u baahan tahay iyo haddii kale. Halka qofka closing-ka uu ka fikiro inta uusan heshiis dhicin ama is-afgarad u dhicin macmiilka inuu wax un ka faa'iido haba yaraatee ganacsigaaga. Waxaad ka fikirtaa sida ugu cajiibsan ee suurtagalka ah ee macmiilkaaga uu ku sii dhadhamin karo in adeegyadaadu ay qayb ka qaadanayaan asiga xalkiisa ama ay ku caawinayaan inay daboolaan baahidiisa ugu yaraan. Sidee ku dareensiin karaa haddaba? Su-aashaas jawaabteeda waxay noqonaysaa waa inaad taqaanid marketplace-kaaga iyo target audience-kaaga. Markaas ayaa waxaad heli kartaa baahida uu macmiilkaaga qabo. Soo qaado qalin iyo warqad oo nood garayso istaraatiijiyahan is leeyahay qayb ayay ka qaadanayaan inaad horumariso iyo wax iibintaada. Istaraatiijiyada koowaad, fahan dadku waxba kuma iibsadaan shaygan waa caqligal ama waa muhiim iyo buunbuunintoona, laakiin dadku waxay wax ku iibsadaan dareen iyo xiisogelin. Tusaale, markaad suud iibsanayso ma qiimeynaysid maangal ma yahay qiimaha aad ka bixinayso suudkan iyo in kale. Waxaad fiirinaysaa emotion ahaan hadhow marka aad ku labisato sidee kusoo bixi doontaa. Dabcan waxa aad u qiimeynaysaa waxay tahay suudka hadhow markaad ku labisid sidaa ku noqon lahayd. Waxaa laga yaabaa halka suud ama kabo ama mobile in aad dhowr shay ku iibsan lahayd qiimaha aad ka bixisay, laakiin waxa aad qiimeynaysa inay noqdaan waxa aad markaas dareemaysid. Istaraatiijiyada labaad, dadku waxay heli karaan ma iibsadaan xataa haddii uu raqiis yahay, waayo qofka ma raadiyo waxa agtiisa yaala inta badan, laakiin dadku waxay iibsadaan wax aanan agtooda ka muuqan ama aanan yaalin. Haddaan si fudud qodobkan u dhigo, dadku waxay mar walba iibsadaan shay aanan qayb ka ahayn waxa ay ka cararayaan, sababtoo ah waxaa jiro caqabad haysata oo ay u arkaan inuu xal u yahay waxa aad markaas ka iibinaysid. Sidaa darteed baan ku leeyahay isku day inaad fahanto caqabadda ama baahida uu macmiilkaaga dareemayo iyo xalka oo markaas raadinayo. Istaraatiijiyada saddexaad, marnaba ha is dhihin dadku waxay iibsadaan badeecooyin iyo adeegyo. Maya, laakiin dadku waxay iibsadaan sheekooyin. Ha ila yaabin markaan hadalkaas ku dhahayo, waayo ma taqaanaa sababta ganacsiyada loogu sameeyo iidhahyada. Iidhahyada waa sheeko laga sameeyo adeeg ama badeeco si dadka fariin loogu gudbiyo. Waxaan ula jeedaa, haddaad looga iibinaysid macmiilkaaga kaliya looga qaleel ha ka iibin ee ka iibi looga sheeko wadata. Oo sidee looga iibiyaa looga sheeko wadata? Tusaale ahaan, shirkaddeeda Cooplas adeegyada ay bixiso waxaa haludhig u ah simple solutions for complex idea oo af Soomaali ahaan noqonaysa xal fudud u hel fikradaha aad is leedahay suurtagal maaha. Macmiilku wuxuu raadinayaa xal. Haddii
aad sheeg ahaan uga dhigtid xalka uu raadinayo, waxaa fudud inuu fahmo waxa aad markaas u sharaxaysid. Waxaan rajaynayaa inaad fahantay istiraatiijiyadahan. Haddii aad u baahanto faahfaahin dheeraad ah, waxaan qaybta hoose ee channelkayga ku dhigi doonaa raadraacyada aan ka diyaariyey muuqaalkan. Sababta aad qodobadan u dabaqaysaa waxay tahay suuqa waa lagula joogaa oo kaliya loogama samaysid, kaliya web designer ma tihid, kaliya video editor ma tihid. Sidaa darteed waa inay jirtaa wax kuu qaas ah oo aad tartamayaasha suuqa uga duwan tahay. Macno badan ma samaynayso in adeegaaga qaali yahay ama raqiis yahay. Muhiimaddu waa in adeegaaga uu macmiilka ku dareemayo inay qayb ka qaadanayaan xalka ganacsigiisa ama baahidiisa. Ugu dambeyn, si uu ganacsiga u guuleysto, qorshaha ganacsiga ku dar inaad xaliso caqabadaha haysta bulshada aad ku dhex nooshahay markaas. Haddaad ilaa heerka inala soo gaartay, waa kaaga mahadcelinayaa waqtiga qaali ah oo aad qayb inaga siisay. Fadlan like saar muuqaalka haddii uu ka caawiyey, saaxiibadan la wadaag si ay uga sii faa'iidaystaan. Su'aasheena maanta, haddaad muuqaalka dhammaysatay ma inoo sheegi kartaa hal farsamo oo aad adigu adeegsato oo muuqaalkeena maanta quseeya oo aad nagu biirin karto? fadlan qaybta faalada inoogu reeb. Subxaanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an laa ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilayk. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.